سنوات ugu horeeyay lixdanaadkii qarnigan 50 sano haduu tirsanaa kadib ayaa gabayga Ismaaciil ee caanka noqday la gabay xayira xilligaasi wuxuu ku beegnaa markii dadweynaha Soomaalida uu jaadku ku baahay ee awal waa la iska xunay jiray uune ay dhalinyaro badan habtumasho u adeegsadeen waxilligii habka geerishka la soo rogay ee magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka wada furmeen aqalada sida quruxda badan u goglan ee gelinka dambe markii shaqada laga soo baxo oo la qadeeyo ay ragga inta qayisha u caraabi jireen ilaahan in barkana iyagoo wehela haysta ay ku batiin jireen waxilligii raaxasiinta iyo soo dhaweynta raggaasi uu dumar aan yareen u noqday il dhaqaale oo ay maalinta oo ay si buuxda uga xoogsadaan waana xilligii isdhexgalka laboodka iyo dhadigoodka aan isqabin ay bulshadu dulqaadka dheeraadka u yeelatay waxilligii waayeelka iyo aqoon-yahanada diinta islaamku ay dhaqankaas cusub aad uga soo horjeesteen hase ahaatee inay wax ka bedelaan ay ku guulaysan kari waayeen xilligaas isaga ah ayaa gabayga Ismaaciil mira loo soo dhigtay dhaqankii xilligaas wax ku saabsan oo tilmaantumasho ah ayaa waxaa garab dhigay gabayaa Allah u naxariistay la oran jiray Cabdisalaan Xaaji Aadan oo reer Burco ahaa Cabdisalaan wuxuu ka mid ahaa macallimiintii dalka kuwii ugu horeeyay wuxuuna muddo wax ka dhigay dugsigii tababarka barayaasha ee markii hore inta loo yaqaan dadaalkiisa la foole loo bixiyay sanadkii 70aadkii qarnigan dhamaadka ah ayuu dibadda u baxay wuxuuna shaqo ka helay jamciyadda qurumaha xarunteeda ku taal magaalada New York halka ayuu ku geeriyooday waxaase la keenay laguna aatay magaalada Xamar qiyaasta 1978 xayirkiisa soo socda sida aynu ka ogaan doono wuxuu ahaa gabayaa aad ugu xeel dheer maansada dabacsan ee reer magaalka maansada kaftanka iyo maaweelada ku wanaagsan dhowr jeer ayuu Sayid Maxamed ku dhiisay gabay xayira oo gabayadiisii kuwa aan laga aqoon tiriyay uu weliba isagii ku nala intii maqashayna dabadeed laga dhaadhicin waayay inaan sayidku tirinay Cabdisalaan oo isu ekaysiinaya uu tiriyay gabaygiisani sidaan meel hore ku soo xusay waa tilmaantumasho halkii uu kii Ismaaciil mira tilmaan dagaal ka ahaa qaafiyad ahaan waa isku mid oo labaduba xarafka taada ah ayay ku wada tirsan yihiin erayada uu Cabdisalaan adeegsanayaana badanaa waa isla kuwii Ismaaciil taasina waxay ka mid tahay tilmaamaha gabay xayirka wanaagsan lagu yaqaan erayada ka sokow tuduucda buu Cabdisalaan garab dhigay qolkii uu Ismaaciil tilmaamay oo toddobada uu ku sheegay waxaa laga qalqaaliyay taleex Cabdisalaan iyo saaxiibadiisii toddobada ahaana toga herar oo hargeysa ah ayay ku sugnaayeen markii ay isla soo qaadeen qabanqaabada barnaamijka maalinta gelinkeeda dambe Ismaaciil iyo Daraawishi meeshii ay fardaha kaga duuleen Cabdisalaan iyo saaxiibadiis taxi bay kaga dhaceen kaas oo goobta dagaalka halkeedii iyaga suuqa qaadka uga cararay Ismaaciil iyo Daraawishi halkii ay xadawga ilaalada uga dirsadeen Cabdisalaan iyo saaxiibadiis waxay dirsadeen laba iyaga kamid ah oo intooda kale intay qaadka ku maqan tahay u sii doora aqalkii ay maalinta fariisan lahaayeen aqalkii ay ugu dambaystii tageen shaayfada lacagtii loo yaqin ee ay bixiyeen agabkii qayraada laga maarmaanka u ahaa ee loo sii diyaariyay alaab wixii gudaha aqalka lagu sharaxay iyo kaftankii iyaga dhexdooda ka dhacay ayuu ku bilaabay wuxuu yiri duhurkii ka gaahiray haddaad qada ka soo tuurto hurdo laguma taamee naftaa lala tacaalay anigiiyo toddoba aan ku jiray tumasho soo qaadno rag tabaabulsuu leeyahay wax istusaalay laba tubaha sii kala cayimaa hore u tuuriyeyna tagsi lagama maarmeen nin wale suuqa nagu tooday tugo jaale qaadkii ka yimid tacab ku baandhayna markay laba tobnaad noo xireen tooriyaha raacna tilmaan quruxsantii lagu ballamay taani ugu toosnay tiftii horeba 100 jaa'ifaad taybalka u saaray barkiyooyinkii teedtanaa suxul ku taageeray nin waliba halkuu soo turqaday garabka soo tiiri isagoo faraas lagu tiftiray laysu tegi shaaha tafureenka sheekada rag way istiraatireeyay kaftan aan turxaan lagu ogeyn isku tuurtuuri Daraawishi geed uu helay ee Ismaaciil tira iyo tayada wixii uu lahaa gabaygiisa ku tilmaamay saanigii uu isagu ka helayna uu inoogu sheegay wuxuu Cabdisalaan halkiisii gashaday quruxda xaragada iyo tajabnaanta hablihii 8 ahaa ee ay aqalka ugu tageen mana uu halmaamin sidii Ismaaciil isaga ku dhiisuna saanigii uu halkaa garabta ka helay inuu inoo soo tiriyo wuxuu yiri tisamaayo unkii tilmiyo tu aan la doonayn
laba aad turkiga moodid oo tikhilka naagooda iyo laba tafriirtii jannaad lagu tilmaamayo iyo laba wax layskama tirshaya sida tiriigaasa iyo aniga toolmoon gadaalla igu taageeray iyo taan lahaan jiray markaan tumasho soo qaado intaasoo xaraga tiicayoo tamashala luudaya oo toobab noo soo xidho oo tal iyo xiisaan leh oo timaha soo firay saraan gacanta noo taagay annaguna hablaha kama tagnay geesha u taagna dagaalkii ruugo rasaastii la isku riday iyo kanoonigii la isku tooganayay halkii uu ismaaciil ka tilmaamay wuxuu cabdisalaam gara dhigay shanqartii kabanka durbaanka rabaabka iyo qalabkii kale ee muusiga ee aqalka gudihiisa ku tumaayeen kooxdii fanaaniinta ahayd si ay tumashadu isugu hagaagto saaxiibada uu isagu ka midka yahay intay u yeedheen u heesaayey wuxuu yidhi heesaha rag bau tamar galoo loona tiriyaaye turjubaanadeediiyo kuway tabaysay soo qaadnay kaban talalaxleeyiyo durbaanta inligtii yeedhay tiidaayo qayl show rabaab faqaha taabsiiye sida geel maqaar loo tuboo lagu tiraabaayo alla tiirigii heesi jiray noogu tacab sawdka ilaahay ha tabantaabiye tiisa nagu daaji annaguna dastuurtay ahayd sacabka tiitayni gabayga cabdisalaam intiisa dhammaadka ahayd waxay ku saabsan tahay ambabixii fanaaniinta iyo habeenkaas gelinkiisii dambe run ahaantiina si asluubaysan oo qaar gabay xayiirada kale ka mid ah ka anshax wanaagsan ayuu inoogu soo tabiyey wuxuu tixdii iyo habeenkiiba ku idleeyey doortay cabbaar noo tumeen rigis u qoondayste sheekadu ablaay noo taxnay toganay haasaawe talantaaligii laba gacmood tahan isweydaarte inkastay taftuba noo dhoweey teeda sharaf eegnay waa taag dareeyaa haddaan taabto geedkaba habeenkaas ninkii tamar lahaa taxay marqaankiisi laba gabay oo ujeed ahaan aad u kala fog haba ahaadeen nafagurayaasha maansada soomaalidu siday wada qireen labada maansayahan mid waliba ku guulaysay kana soo dhalaal ii u abbaaray